Bismillahirrahmanirrahiim. Weli waxaan ku jirnaa cilmiga barashada sida loo dhaqdo shinnida. Maanta waxaynu sameynaynay Allahul musta'an inaanu ogaano qafaskan imisa kiilo ku jirto. Waxaana joognaa meel la dhahay decision point go'aan inaan gaarno. Sida aad u jeedaan qafaska ama saxaradan waxay ka kooban tahay 2 dabaq waaye. Dabaqa hoose oo 3 ay ku qoran tahay waxaa ku jiro boqoradii ku jirto. Dabaqa korayana waa dabaqii oo malabka laga soo saari lahaa. Marka waxaanu rabnaa inaan ogaano culayska malabkaasi uu yahay qiyaastii. Maanta marka culayska aan waxaanu saareynaa scale-ka oo lagu fiirinayo culayska. Marka labada dhinacaan kow ka bilaabeynaa culayskiisa la fiirinaa inta uu noqday ka bacdi hadana dhinaca kale markaas waxaan qiyaasi karnaa saxarada inta kiilo oo malab ku jirto. Saas daraadeed waxaa muhiim ah inaanu gaarnaa go'aan ma waxaynu u kaadinaynaa weli 1 week ma ku dareynaa mise 2 week si malabka aan rabno uu u gaaro mise hadeera aan ka goosanaynaa. Marka dhaqashada malabka waa arrin aad iyo aad u fiican. Wassalaamu calaykum wa rahmatullah.